gudoomiyaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray bariish casri ah oo shirkadda Dahabshiil Group ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Bariishkan bulshadu baahi weyn u qabtay ayaa munaasabada furitaankiisa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, maamulka shirkadda Dahabshiil Group, xildhibaano iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri marka koowaad ilaahay waa mahad leh ilaaha bariishka inoo dhameystiray inta kadib waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ama chairmanka Dahabshiil Group Maxamed Siciid Ducaale alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay isagana miisaanka xasanaadka ugu daro haddii aan ku yara noqdo taariikhda ama sida ay ku bilaabmay bariishkan in la dhiso markii ummaddu ama gobolka dad ka mida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno ayaa shirkaddu ama xaajigu gartay in uu bariishkan sameeyo markaa isagu waxa uu ka fikirayay wadalugeed oo dadka uu qaadayo in uu u sameeyo bariish markaa bariish wadalugeeda ayaa meesha laga sameeyey bariishkii labaad oo isagana isla laagtanoo afgooyaa markii la sameynayey ayaa fikirkani uu yimi mid macal gawaadhidu mari karayso in la sameeyo dabeetana bariishkii labaad oo halkan afgooya laga hirgeliyey ayaa sidan oo kale loo sameeyo mid macal gawaadhidu maraysa laga dhigay markaas ayaa haddana hindisii in kan hore wadalugeedka la burburiyo oo kan labaad ee macal gawaadhidii macal dadkii mari karayaan inaynu samayno aynu hirgelinay ilaahayna waynoo dhammaystiray alxamdulillahi rabbil caalamiin. intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay mudankii mas'uuliyiintii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay madasha furitaanka bariishkani waxaana si ballaaran ugu mahadnaqeen mulkiilaha shirkadaha Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale dhismaha bariishkan iyo sidoo kale dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee uu mar walba ku bixiyo horumarka guud ee dalka. ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala oo mudan in badan aynu mahadnaqno waxaynu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil Group iyo Maxamed Siciid waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyn oo haysatay runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daay ee xaajigu magaalada uu joogay Maxamed Siciid ee subaxdii bariishkan uu ku dhawaaqay waxaan ku tukaday Masjidul Huda 2 saacadood iyo 40 minir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho waliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen 400 oo gaari iyo dhowr 400 oo tigood oo ay nagu qaadatay 2 saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan marka runtii farxad bay u tahay gobolka Togdheer iyo degmada Burco iyo dadweynaha reer Burco bariishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda Dahabshiil Group ay dhistay waxaan leenahay ganacsatada kalanaha ku dayato ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro Maxamed Siciid iyo shirkadda Dahabshiil Group iyo inta ka qayb qaadatay anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada runtii farxad iyo dareen gaar ah maanta arrintan noo sameynaysaa bariishkan maanta xadhigga jarkiisa la joogo annagu ka maamul degme ahaan abaal gaar ah baanu ganacsada Maxamed Siciid iyo shirkadiisaba aanu haynaa siduu noo garab qabtay codsiyada aanu la tagno iyo waxtarka weyn uu noogu gacansiya aad iyo aad baanu ganacsadaha ugu mahad celinaynaa shirkadaha kalena intaan leegina ku daydaan baanu ka codsanaynaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ganacsiga awlaadda ubadka iyo arsaaqada iyo maalkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala fil janna aanu kuugu ducaynay Dahabshiil ha noolaado Dahabshiil ha noolaado Dahabshiil ha noolaado Maxamed Siciid ilaahay ha barakeeyo ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo reer Burco maanta ducaa lana ka rabaa maanta Maxamed Siciid maxaa tiraahdeen Maxamed Siciid maxaa tiraahdeen shirkadiisa maxaa tiraahdeen Dahabshiil maxaa tiraahdeen maanta laga bilaabo bariishka waxaa la yiraahdaa Dahabshiil bariish baa la yiraahdaa soo sidaa ma aha bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin bariishkii ugu horreeyey ma aha Dahabshiil Group oo maanta uu ka hirgeliyo degmada Burco ee gobolka Togdheer waxaan leenahay xaaji ilaahay ku barakeeyo adiga shirkadaadaba waanu kaaga mahadnaqaynaa man lam yushkiri nnaasa laa yushkiri illaah qofkii aan dadka u shukriyin ilaahayna uma shukriyo waanu kuu mahadnaqaynaa waanu kuu ducaynaynaa waanu kuu baarigaynaa reer Burco soo sidaa ma aha danta guud ahaan meel walba waxbuu ka qabtay
lama tilin karo lamana soo koobi karo dahabshiil maxaa tirahdeen dahabshiil ha noolaado wabilaahi tawfiiq gabagabadiina waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda dahabshiil group xaaji maxamed siciid ducaale alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle halkan isu keenay nabadgelyada iyo nolosha fiican iyo cadaalada diirana in haysa ilaahay baa horta mahadaale dadka reer Burco runtii waa dad runtii wanaagsan wadada jecelahay waa magaalada ku soo koray yaraantaydii markaan dhalinyarada ahaa markii imika aan gababo odayoobay inta Burco joogay halka imika aan birashka ka sameynay inta jeera aan lugeeyay daadku iyo biyahaas oo halka ay ugu qaadan gaadheen tira male marka horta magaaladu waa magaaladeydii dadka reer Burco aan kala saarina ilaa ka daraf runtii dad wax la kala saaro maaha hadalkaygu imika kaalmadaydu waa duca dadka waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay caafimaad ina siiyo in ilaahay raxmaad ina siiyo ilaahay nabad ina siiyo buuxda ilaahay waxaan inta aynu haysano dara dhaadheer baynu wada haysanaa waynu garanaynaa magaaladaynu joogno hal fooq may lahayn hal fooq yaroo halkaas nin hindi lahaa iyo kii ina hala inta kaina halaan timirtaan u doonan jirno waxa loo jiray halkaas timirtu taalna xamarti meel kale oo waxay maantana waa arkaysaa waxaas horumar baynu deegaadnay in kastoo de 60 sanadood baynu ka hadlaynaa ka hor weeye markaan ka hadlaynaa arrintu cayn ka ahayd waa ilaahay mahadi ilaahay nimcadaas inuu ka baryanaayo inoo sii barakeeyo